بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada macmiil maanta waxaan idin haynaa guri fooqa oo aad runtii u qurux badan, aadna u weyn. Ilaahay baa weyn. Guri qasri ah, la dhireeyay, la qurxiyay, aad runtii u qurux badan weeye gurigani macmiil wuxuu ku yaala Hargeysa, gaar ahaan xaafadda Jigjiga yar. ما شاء الله تبارك الله قيبتا قنتالها ما شاء الله يو غوريغاني كيالا غوريغاني وغوري ما شاء الله تبارك الله آد لو قرحيي شرف لي ما شاء الله تبارك الله. هدبا معميل هدي ان غوريغان فاهفاهنتيسا غالو غوريغاني waa laba dabaqyo badh ما شاء الله تبارك الله. دير aad u ballaaran ayuu leeyahay gurigan. haddii aan ku daro qiimihiisu waa 325,000 oo dollar. ما شاء الله تبارك الله. guri ما شاء الله weeye macmiil. gurigan ka faa'iideyso. waa guri ganjeel weyn ama deyr aad u weyn leh, barkad biyo oo 100 foosta ah leh, guri qurux badan si xaragalana loo dhisay weeye. ما شاء الله تبارك الله. haddaba macmiil gurigan cabirkiisu waa 25 mitir iyo 25 mitir oo isku weera. ما شاء الله تبارك الله. soo dhawaada macmiil. gurigan qolaalkiisa haddii aan idin sheego waa qolaal ما شاء الله reer iyo family badanna ku filan إن شاء الله تعالى. waxa weeye 7 hurdo ah iyo qolkii dibadda, 2 madbax. ما شاء الله تبارك الله. qolkii laundry-ga ما شاء الله تبارك الله. soo dhawaada macmiil. waa guri geed ballaaran leh, xoog ما شاء الله ama si wacan ayaa loo dhireeyay. qolka hurdadu qaybta sare ayuu ku yaalaa. ما شاء الله تبارك الله. 7 hurdo ah si aan idin sheegayba, ama haddaan mar labaad idinku soo celiyo, iyo 2 qol oo madbaxyo ah oo aad loo qalabeeyay ama loo qurxiyay. qolkii laundry-ga iyo suuliyaal qaybta dhexe ah waa hal suuli. ما شاء الله تبارك الله. halka dibaddu hal suuli yahay. ما شاء الله تبارك. qaybta dhexe gurigan waxa weeye ما شاء الله تبارك الله waa 3 suuli ama waa 2 suuli cafwan. ما شاء الله تبارك الله. qaybta sare oo maxaan ku dhahaa aad iyaduna cajiib u ah ما شاء الله تبارك الله waxa weeye waa hal suuli iyo maxaan ku dhahaa 2 qol. ما شاء الله تبارك الله. gurigani waa 7 hurdo ah, 7 hurdo ah iyo 2 fadhi. ما شاء الله تبارك الله. 2 fadhina wuu leeyahay oo waaweyn. ما شاء الله تبارك الله. macmiil gurigan ka faa'iideyso. waa guri qaybta sare ee maxaan ku dhahaa xaq qaybta sare guriga laga sii wadi lahaa. waa guri maxaan ku dhahaa marmar baa la dhigay qaybta sare. ما شاء الله تبارك الله. qaybtan waa qaybtii dhexe macmiil. gurigan ka faa'iidey 325,000 baa laga siinaya qofkii maxaan ku dhahaa gurigan maxaan ku dhahaa ma badna lacagtaas qofkii Ilaahay u dhiibo. ما شاء الله تبارك الله. Ilaahay siiyo. ما شاء الله تبارك الله. waa kan macmiil gurigan ka faa'iideyso إن شاء الله تعالى. qolkani waa qolkii hurdadii aadka u quruxda badnayd weeye إن شاء الله تعالى. وكا si aad ayaa loo qalabeeyay ama loo qurxiyay sidaad arkaysaanba. qolka hurdadu aad buu runtii u weyn yahay. ما شاء الله. imika qaybtii dhaxan joognaa, qaybtii sare iyaduna inoo hadhay إن شاء الله تعالى aan tagi doono إن شاء الله تبارك الله. waa kan qolka hurdadu waa qol aad u weyn, 3 daaqadood oo waaweyn ayuu leeyahay. gurigan waa guri nin hantiile isugu talagalay, kadibna qurxistay, kadibna lacagta u baahday إن شاء الله تعالى. soo dhawaada macmiil. ka faa'iideysta gurigan mar walba iyo waqti kasta. waxaan diyaar idin lanahay inaan idin soo gudbino guryaha aadka u quruxda badan. ما شاء الله تبارك الله. idinkoo halkiina iska jooga, goobihiina ganacsi iyo shaqadiinaba iska jooga إن شاء الله تعالى. ka daawo rasmi real estate qaybtana ugu dambaysa guriga.